shirkay jaraa'id wali ka saabsan yahay aan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed aan eeday in aan ahaa musharax madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed insha Allah in aan hasharaha walaalayaal ee kala fay wali kumada aha markaan aragay qodobka 47 ee dastuurka Koonfur Galbeed oo tilmaamaw in la magacaabo madaxweynaha meel raay madii la doorado inuu soo magacaabo madaxweyne ku xigeenno madaan aragay amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo sideed control magaalada Baydhabo controlka meel raay warshad hasay controlka Bonkay iyo controlka EDC sideed control lay Koonfur Galbeed oo meel raay madaxweynayaashii lamadii madaxweyne oo horeeytay sideed control dhato lay ka filanaatay aan aragay madaan aragay cadaalad darrada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ka habsatay oo baabadi geek meel raay meel mugdo xunka jarta silon ku bah markaan aragay dadka reer Koonfur Galbeed la dhibaatay habaraka ay oo ki magaalada roogi ha ku barakacay ki baadi jarna baahan ku barakacay oo dhibaatada meel raay oo barakacayaasha meel raay reer Koonfur Galbeed ee dhibaatada ka haysata madaan aragay deked laanta haysata dawlad goboleedka Koonfur Galbeed muddo san ibar ah Koonfur Galbeed meel raay oo maamul Koonfur Galbeed ku jari lamadii dekedood meel raay oo baraw iyo marka la howlgeli waay madaan aragay dhalinyarada walhabarati iyo dhamaan dhalinyarada reer Koonfur Galbeed shaqo laanta ibaada muuntada dirbiya la wada fadhiyaan iyo cadaalad darrada meel raay oo dhalinyaradaas ay ka dheeday madaan aragay markaan aragay horital goolaanka ku jara Koonfur Galbeed oo dastuurka Koonfur Galbeed qodobkii 9aad tilmaamo muwaadin kasta wali xaq Ingiliis intuu fikirshi abaro koro wala isfadaw shay koro maana meel raay lanka dhibaatay korna yaga qodobka 9aad ee dastuurka Koonfur Galbeed isla qodobka 12aad qodobka 12aad ee Koonfur Galbeed wali kala tilmaamay horital goolka fikradiisa koowaad qof kasta wali xaq Ingiliis aha in xisbiga isfada ka beero koro fikirkiisa horan ay wala isfadaw bandhig ka kor ya tilmaamay iyo dastuurka federaalka Soomaaliya qodobkii 20aad iyo qodobka 18aad nasaas oo kale ku hadlaw in horital goolka qofna lanka gaabo koro madaan aragay maamul xumada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ku jarta madaan aragay markaan aragay dastuurka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed qodobkii 50aad fakradiis koowaad qodobkaas oo tilmaamaw mudahalaadka madaxweynaha dawlad goboleedka iyo golaha wasiirada inta 4 sano madaxweynihii hore dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan mudahalaadkii wali bilowday inta shantii madaxweynihii hore meel raay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan mudahalaadkii wali bilowday 2015 wayna mudahalaadkii ka akaayeen 2018 madaxweynaha Tirooga mudane Abdasiis Xasan Maxamed Lafta Garaan mudahalaadkii wali bilowday 19 December 2018 walina ka dhamaaday 19 December 2022 oo ku dhamaan hata 6 bilood bisha ku hirsanta madaan aragay yageeka oo taariikh Abriil 2022 wali go'aansaday in aan sharaxa madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aan oo aaminsan insha Allah ta'ala Ilaahay idin shay in dhibaatada ummataasi hayta Ilaahay ku bii kore ana ku bii kore aan aaminsan wayla hadal fadayha xildhibaanada golaha wakiilada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo 9 ka kooban xildhibaanada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo 9 ka kooban wali haysadaan geek fursada haysadaan adduunyada wayla reeseefo ka guuys antikiin goyneel ku faa'iideysadeen 149 golaha wakiilada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed isan siin ku horeeyeen sel wali ogaayteen maalin jamaacad inta gadalan soo biyo wayla process yaraha maraasan macnan lahayna aniga idinka leey anfaca idinka bay doorateen
ويا dambeed kuna dhamaantii inta la haagay may rahay ogdin walaalkana madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed hatirow lama dawal hanagadi oo usan hayna in wal haadama fadaw lama dawal hanagadi hoob may rahay wal hanagadi ko kale usba ku weydiiyay madan anta ko kale la siin ku weydiifade hatta fursada gabtanaha ahaan wali ataha in isan madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed doortamo sharciyan latin goliyaasha dawlad goboleedka Puntland madaxweyne jooyo doordan goliyaasha dawlad goboleedka meel raay Jubbaland madaxweyne jooyo doordan goliyaasha dawlad goboleedka Galmudug madaxweyne jooyo doordan goliyaasha dawlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne jooyo doordan goliyaasha dawlad goboleedka koonfur galbeedna wali xaqin leeynaha iga madaxweyne doordan sida suurka qoran yaxkan leey marka aan meel raay dhibaatooyinkaas aan argay ya go'aansaday in dadku ilaahay dhibaatada ku bii karo insha Allah taala ilaahay in shay in aan dadkaas gurmada dhibaatada ku bii ujeedada ana shirkay jiraadan qobada ana saaso hadii ilaahay raala ka nagada reer koonfur galbeed insha Allah taala ilaahay in shay wali ballan qaaday in lacagti caafimaadka iyo corona lan ku tirgalay ana jaabka in ka shabada doonay aqoonkay gaarkan ka shabada doonay insha Allah ilaahay in shay reer koonfur galbeed wali ballan qaaday lacagti abaaro lan ku tirgalay in aan aqoonkay gaarkan ku shabada doon reer koonfur galbeed hadii ilaahay raala ka nagada wali ballan qaaday lacagti fatahaadaha lan ku tirgalay in aan aqoonkay gaarkan ku shabada doon insha Allah way reer koonfur galbeed aan ballan qaaday in hubkii dawladda federaalka dhiibto oo dawlad goboleedka koonfur galbeed ciidamadii lan ku tirgalay in aan qabiilka in sii doono yaan ballan qaaday wali kale ballan qaaday ciidamada koonfur galbeed la qorow in meel raay reer koonfur galbeed odayaashu dhaqansho garantiyo ka qoro doonaan ana qabiilka ciidan gaaran ku qoro doono yaan ballan qaaday hadii ilaahay raala ka naga wali ballan qaaday in mashaariicda koonfur galbeed lan ku tirgalay lacagtee ana aqoonkay gaarkan ka shabada doona yaan ballan qaaday wali kale ballan qaaday hadii ilaahay raala ka naga hadii aan madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed in doorada inta aan madaxweynaha koonfur galbeed muwaadin Soomaaliyeed koonfur galbeed la ku afduubay in dawladda federaalkan afduuban in hayso doon hal maalan ama ana hayo in ardoon lan muwaadin Soomaaliyeed inta madaxweyne ka meel maray dawladda federaalka lan ku afduubo doon insha Allah taala ilaahay idin shay wali kale ka shaqeey doona in dhammaan xisbiyada Soomaaliyeed oo dhan aan simanaada dhammaantii may raay hadaan meel madaxweyne kana xafiiska ka wada furo doona dhammaan xisbiyada Soomaaliyeed dhammaantii xafiiska ka wada furo doona waayo lan ku higa la waa muwaadin Soomaaliyeed qof kasta xisbi kasta in may raay ka furo doona xafiis yaan ballan qaaday runtii wal gobadkii walaan gobado doon hadii ilaahay raala kana madaan golaha wakiilada dawlad goboleed koonfur galbeed hortii aan surum iyo wal aan gobado koonfur galbeed walaan gobado doon ya sheego doon hoob ilaahay raala kana insha Allah taala ilaahay idin shay waan eed iyada ma hasantin ramadaan mubaarak